هلو، سلام عليكم إيه ورما سيتهين أخبار. ما أنت قصة لا يابي معناها إن شيء ما فهمتين. قصة لا يابي وحواي horta qisadan dalka Masar ay ka dhacday laakiin Soomaaliya ku dhacday ma fahanteen maxay ahayd sidaan maqlay aniga qisada laakiin xaqiiqo waay qisada sheegayna qisa been ima sheegay ma fahanteen gabar iyo wiil isku doonaayeen gabartii iyo wiilkii isku doonaayeen waa isku doonaayeen qatiibay dhahaan carabta qutuubay dhahaan qutuuba waa isku doonaayeen macnaha arooskooda loo qaban qaadihay marka gabartii waa iska fudfududeed wiilka waa u doonayle ma u nikaaxsaneen laakiin wiilka guriyo lahaa shaqo waxaa laga wadaa guri adiga cimaarada weyn sar weyn waaye xaafad guri yar waaye Soomaali wax lagu dhaho ma aqaan shaqo dhahan carabta shaqadaas oo lahaay shaqadiisa lahaay gabartan wuu wadi jiray wuu geey jiray shaqadiisa geeysi jiray sidii nin inaag is qabaan camal way iska dhaqmi jireen iskaaga dhaqmaayeen maalin maalmaha kamid nimanoo la hadlay nin i qiyaanadiis nimanoo la hadlay wuxuu dhahay gabartan way ii doonantaa laakiin ma rabo gabartaana maanta xaflad ku sameeyeenaabano xaflada gabarta lagu sameeyaa ay gabar waa la wacay guriga la keenay sidii caadi ahayd markii hore iidi ninkeeda taasay ahaayeen macnaha ninkii u doonay hooshooday qabsadeen markay qabsadeen ileen iida qolkay ku jiraan hoole iska heestaan nin kala albaabka kaamira la taagan laakiin iida ma aysan arkin waa laga duubay markii laga duubay ninka hooshiisa markuu dhameystay halkala soo galay ninka maxaa noogu soo gelisay Axmedow ninka maxaa noogu soo gelisay wuxuu dhanayaa waa lantuu dhahay meesha ka hadlaysay meesha kala baro almuhiim ninkii kala markuu soo galay kani Axmedkiya kaamirada qabtay dhag waa la duubay haddana dharkii iska dhigay meeshii hool lagu bilaabay waa la duubay kal iyo laab gabartii waa la duubay markii la duubay kan haddana wuu dhameystay wuu baxay koo kala soo gala haddana dhag haddana waa la duubay kii kala haddana hooshiisa qabsaday kan kala kaamirada qabtay waa la duubay markii la duubay kii afraad soo gala haddana waa la duubay haddana afar filinka dhicina laga duubay gabartii markii 4 filin laga duubay gabartii way xanaaqday laano markii hore iyada hal nin loo ma jirtay maanta 4 ay u noqdeen way baxday markay baxday hooyadeeda u tagtay hooyo waxay dhadaan 4 nin soo xoogeen oo ninkii ii doonay ku jiro ninkii ii doonay ay waday gurigaana markaan is arooseen aan soo dagayna hooyo guriga soo tustusii guriga inta arkay sheedaana qaaday 4 nin ay soo galeen meesha lagu xoogay filan waa laga duubay saas miyaha hooyadeed way baxday niyaabadii u tagtay meesha saldhigay markay tagtay waxay gabarteeda waxaana ku dhaceen dhibkaana ku dhacay saana ku dhacday marka ninkii oo korneelka ahaa oo wareysay wuxuu dhahay maxay ahayd nimanka ma ku xoogeen mas adaa raali ahayd markii hore hooyadeeda ka cabsiyeysay wixii dhihiis waa xoogeen markii dambe waxa la run sheeg markii hooyadeeda markay fiirisay asixay dhalmaya ani ninkan ma xoogin ninkan waa u tagi jiray ani asaga gurigaas oo aroosa oo ani asaga isku dooneen marka calaaqada kaamil ma sameey jirin laakiin waxaan ka tataaba jirnay wax ma ka tataaba jirteen wuxuu dhahay marka see kale ku dhacday saas sidii maalin dambe tan woo i wadi gurigiyo igeey sidii aan sameey jirnay baan sameeynay
laakiin maanta way iiga bedelneed maanta niman halaa baxay halaa soo galay halaa baxay halaa soo galay halaa baxay halaa soo galay kaamira saas lee daba wataa saasaa dhacday saas maa dhacday haa 4 ninaa loo wacay dhab waaba la soo qabtay daqiiqad ma ku qaadanin waa la soo qabtay markii la soo qabtay waa la keenay markii la keenay waxaa la yiri gabartan saas mu dhacdeen ninka u doonaya wuxuu yiri gabartan horta aan markasta way iimaa jirta aniga iidan waa kala xaajo gudaha jirnay waxaan isku cusubnahay ma ahan wax maanta nagu cusub saaxiibaday waaye saaxiibaday aan nagu cusub maxaa sameeysan saaxiibaday la hadlay waxaa la yiri arrintan maxay ku dhacday wuxuu yiri isaga noo balamiye maanta macnaha waliiman sameeheena saaxiibayaal u imaada xaflaan sameeysan maanta sidaas oo ku soo raacnay asaana nugu qalqaali anaka waxaas wax ma baahan nimankii waa la qabtay waa la xiray 4 maalin la xirnaayeen waalidii gabartini waxaa la yiri warays dambaa lagu la yeelaha iyada xataa in la xiraa macquul laakiin aniga saraaxa waa ila dulmayhin aniga macnaha saldhiga iyo waxaas waa ila dulmayhin waxay ugu dulmayhin qof qalad woo galaa gabar iyo wiil wiligooda israacaan hool qabsadaan laakiin in 4 nin kaamira laga duubo oo adduunka dhan lagu fadeexay wax qalad ila tahay ani wallahi saldhigaaba ila qaldanbo ani saldhiga ila qaldan saldhiga wuxuu ugu qaldan yahay gabartu way qaldoontay midaadka kale gabarta ninka wuu u doonaay ninka gabarta ha u doonaadee in maxay aheeday 4 nin oo waxay qabaan la ogeen kaamira loo qabtay oo kaalaya beertan gala macnaha qalad nin inaag way jeclaadan hatta wax ay dhaxmaraa inoo oo waliimo saaro xaflad loo korkeeda laga sameeyo ma ahan saas ay tahay waliba 4 maalin la xirnaayeen maalin shanaad loogu mudan waalidii waxaa la yiri nimankan dambi kuma hayna dambiga intaas ka weyn ee gabar xawalay ee maskiin ee gabar wili aan la aroosin 4 nin lagu saaray ee waliba kaamira laga sii duubay haddana dambi ma lagu herin lagu leeyahay ka waran subhanallah ma aqaan wallahi bilaa wadamada muslimka ay ka qawaaniinkooda waa iska si kale wallahi maanta hadii wadamada heer galbeedka ahaa lahaay nimankaas tilaabo sharci laga qaadan lahaay laakiin waa ka xumaha miskiinta waa ka xumaha sheekadayna maanta meeshaas nagu soo gabagabeeyaa kaamirada ma qurxi aqaan wajigay sida caadadeedii yaab qurxanahabo kaamirada iyo marka caadi ahaa qurxana kaamirada waxay iga dhigay wax madow oo iyada dhan fil darro badan iga dhigay acuud bilaa kaamirada youtube waa ku wareer ma ii qurxanahays oo shiiqo maxaa kaamirada youtube dadka ay ku qurxsadaan an waa wareeray dadka maxay ku qurxsadaan walaalayaal ila soo socodsiib waxa youtube ku qurxsatiin aniga waxaa ku yiri inta ay qurxilahay waa bi xumay haabo maalin weyn waa duuba aniga youtube-ka ما بأخانا بس يقرأ عند عيال كور مذوب أنا كوركيغا الحمد لله رب العالمين أنا قبل أسكت مذوبها لكن زائد مذوبي وأنا ما أقان ولا واحد قلبا وعيال وشركة ما شافوا إنه اكتهي إن شاء الله next time see you